ku soo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsani wali halka nagala socotaan waa Som TV xafiiskiisa magaalada Muqdisho haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh si aad uga mid noqoto saaxiibada la socda warbixinada iyo wararka halkan aynu soo galino haddii hore aad noola joogtayna waa ku mahadsan tahay aan ku bilaabe tabinta waxaynu kaga hadli doonaa xaaladda maamulka galmudug iyo dhaqdhaqaaqa xooggan ee ka socda gobolka galgadood degmada ceelbuur ee gobolka galgadood ayaa waxaa kaabinka ku haya ciidanka dowladda federaalka noocyo kala duwan iskugu jira oo in dhawaalaba lagu diyaarinayay degmooyinka kale ah dhuusamareeb iyo ceeldheere ee gobolka galgadood sidoo kale xarar dheere ciidanka dowladda federaalka ayaa ujeedadoodu waxay tahay in shabaab ay kala wareegaan ceelbuur ee gobolka galgadood maanta duqaymo jihooyin kala duwan ah ayaa waxay ka dhaceen degmada galhareeri ee gobolka galgadood halkaas oo shabaab ay muddo dheer maamulayeen galhareeri ayaa waxaa la sheegay inay ahayd meel muhiim ah oo shabaabka muddo dheer ay ku xoogganaayeen ila dadka deegaanka ee galhareeri ayaa waxay sheegeen in duqaymahaas saddex jiho aan laga weeraray galhareeri waxay dadka xogogaalkaahi ay sheegeen in la duqeeyey xarun idaacadeed oo shabaabka ay leeyihiin Andalos oo ku taallay galhareeri sidoo kale saldhiggii weynaa ee shabaabka ay ku lahaayeen galhareeri wararka waxay intaa ay ku darayaan goob waxbarasho oo shabaabku gaar u ahayd in sidoo kale goobaha la duqeeyey ay ka mid tahay garaash weyn oo ku yaalla galhareeri sidoo kale gawaari shabaabka ay leeyihiin duqaymahaasi lagu gubay intaas waxaa sheegay dad xogogaala oo aan doonaynin in magacyadooda aynu xiganno maadaama xogahaasi ayna la wadaageen waxaa la sheegay in galhareeri ay hadda haawanayso ciidanka dowladda federaalkana ay kaabinka ku hayaan ciidanka dowladda federaalka oo aad u fara badan ayaa hadda waxay ku gurguurinayaan galhareeri iyo sidoo kale degmada ceelbuur ee gobolka galgadood wararku waxay intaa ay ku darayaan in shabaab mar horeba ay faaruqiyeen galhareeri iyo sidoo kale ceelbuur ee gobolka galgadood waana gobolka galgadood labada degmo ee keliya ee shabaabku ay ku hareen dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud oo in dhawaalaba ku sugan dhuusamareeb ee gobolka galgadood oo golaha wasiirada maamulka galmudug la hadlay ayaa wuxuu jeediyey khudbad dhowr iyo 10 daqiiqo soconaysay wuxuu ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ujeeddada uu u joogo maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in galhareeri iyo ceelbuur markii la qabto lagana faaruqiyo shabaab labada maamul goboleed hirshabeelle iyo galmudug sida ay ka dhigmayso soo xirista wejiga koowaad ee dagaalka lagula jiro shabaab intaasi kadib loo jihaysan doono maamulada koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland halkan waxaa u nimiday in guud ahaan fayskii koowaad ee dagaalka aan soo gabagabayno labada degmo yaryaroo maxaanku irahdaa uu ku haray dhulka galmudug uga haray ee khawaarijta uga hartayna inaan ayaguna aan dagaal ku qaadno meesha ka bixinno kadibna aan ujeesano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas declare garayn doonaa galhareeri iyo meesha la yiraahdo ceelbuur marka aan istaagno in maxaanku irahdaa fayskii koowaad ee dagaalka uu dhammaaday oo lasoo gabagabeeyey fayskii labaadna la bilaabi doono labada dowlad goboleed ee galmudug iyo hirshabeellena ay ka madax bannaan yihiin khawaarijtii labada dowlad goboleed ee kale koonfur galbeed iyo jubbalandna aan u xeydxeydan doono markaan ayagana aan hore ka bilaabi doono insha allah ayaguna muddo kooban aan kusoo gabagabayn doono saan rajeynayno laanna intii hore waana ka khibrad badannahay waana ka waaya aragsannahay waana ka xoog badannahay hadda marka idadiilada aan qabnaa ee mustaqbalka aad iyo aad ayay u fiican tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu kaloo uu sheegay in sanadaha badan ee shabaab ay ka howlgalayaan koonfurta soomaaliya dhibaato xooggan ay u geysteen shacabka wuxuu sheegay degmooyin hadda ay ku dhow yihiin bulshadii ku noolaa iyo degmooyinkaasiba inay baaba'aan 16 sano ay kusii dhadhowdahay inta hadda khawaarijtu ay dalka soomaaliya ay 4 dowlad goboleed ay ku habsadeen oo ay haysteen 16 sano 4 dowlad goboleed dhibaato aad iyo aad u ballaaran ayaa
ayay gaarsiiyeen afartan dowlad goboleedna waa afarta dowlad goboleed dhul ahaana Soomaaliya dabcan dhulkii Soomaaliya badankiisa waa yihiin marka dhinac walba marka loo fiiriyo dhibaato xoog leh oo Soomaaliya haysatay ahayd in al-shabaab khawaarijta ay afartan dowlad goboleed ay ku habsadaan waa cunaqabateeyeen dadkii dhibeen degmooyin badan oo almost hadda waxay ku dhadhow yihiin inay tirtirmaanba oo dadkii waa nolosha oo adkaatay awgeed looga guuray iyo abaaraha iyo maxaan ku raadayay cimilada isbedeshay oo isbiirsaday ayaa degmooyinka qaarkood waxay hadda ku dhow yihiin in ay baaba'aan waa uu sii hadlay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud wuxuu ka hadlay waxa heerkan gaarsiiyey al-shabaab in Soomaaliya ay ku nagaadaan wadamada caalamka in laba siyaasadood ay qaateen tan koowaade in shabaab Soomaaliya lagu hayo oo aan caalamka u gudbin wuxuu kala warkiisa inta uu ku daray in wadamada caalamka ay khatar ku noqon karaan shabaab sida awgeed wax allaale wixii lagu celin karo shabaab Soomaaliya si ay ugu sugnaadaan go'aankaasi la qaatay wuxuu kala sheegay madaxda shabaab qaar la dilay iyo qaar lacago fara badan lagu xukumay intuba la gaarsiiyey si ay u tabar yareeyaan sababta kale oo ugu weyn oo dagaalka al-shabaab loo dhaqaaji waayay waxay ahayday إذا شباب أنا بس قطر نقومها قبل كي قطر كوين عالم كي قطر كوين أجندة إلين أجندة لوكال أو سومالي كقبل معها أجندة عالمية أي إلين أو حي طبعا عالم كردن إن محن كور هذا يتلعب لك قاعد سيدا استرادت لبس سياسات أو مد أسقوعه أي أنا لو جاري صاحب بدأ ذات كان نجار نحاي ونطراي جعل إن شباب للديران أي قاعد قرار سياستها سيجاري سياسات مد وحليلا containment policy أما شباب هلو علي سومالي يوم كصبحن يوم بنا كصبحن أو قبل كونا خطر جلين أو عالم كونا خطر جلين بل ماشان أي جوجان أنت حلو هلا ماشوا ده هلو علي أو مركز سياسة داس وحي هيدي معاكم هذا حلا حدودها إيو بفر زونس إيو وحا حلا سماه أو من كان مركز صار قام دب هلو ريحه سياسة اللبعض نحن سياسة هذه أود الشباب هوس الله دقو degrading أما هلا تبردرناه وما حدود هلا دلو محن كورا هذا دكسيد وحكوتها وبرتان ومرك قرقود هلا ويررو ونقابتين هلو سوررو si ayna awood ugu helin inay afkaartan qaloocan oo dhibka badan ay wataan inay dhoofiyaan oo ay dibadda u qaadaan ayna ugu helin muxuu ahay fursad labadaas siyaasadood ayaa shaqeyn jirta marka faaragteen madaxda shabaab waa la dilay qaarkood halkan magaalada Dhuusamarreeb lagu dilay qaarkood jamhuuriyadda deeseeda kala duwan lagu dilay qaar waa la xirxiray wax badan lagu sameeyay qaar una qabateen iyo muxuu ahay madaxa lacag madax furasho ayaa lagu soo rogay dhibaato waa socotay yani siyaasadahaas marka siyaasado oo kulli khasaaro ma ahayn mar walba shabaabna waxbay u dhimayeen fursad uu ku sii bulaalana waa u diidayeen cadaadiskaas haddaba al-shabaab ma ku naaquseen masase kale ayay uga dabaasheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud shabaab niman dhib badan waa argagixisoo dhamma meel kasoo joogto haddii meel xoogga laga saaro si ay u amaaraystaan meel kale u aadaana yaqaanaan haddii madax la dilay madaxdii hore madax ka sii xag jirsanay ay soo saareen haddii maxaan ku yiraahdaa meel tababara laga burburiyo maanta dambaba xeradii xero ka weyn oo tababaray xagga ka dhisaan marka nimanku niman oo yani dhinac walba uu waxaysanayay ahayn siyaasadahaas marka waxay sababeen in shabaab ay baabi'i waayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in shabaab hadda dhaqaale uga yimaada dibadda aanay jirin maadaama al-qaacida ay ku xirnaayeen la burburiyey keliya meesha dhaqaalaha ay ka helaan ay tahay koonfurta Soomaaliya dawladdiisana 3 arrimood ay u dejisay sidii looga hortagi lahaa wuxuu sheegay in 3daas arrimood dawladdu ay u hirgashay intii xukunka banaanka uu ka joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo markii xukunka uu ku guuleystaba maxaa ajenda ah oo ay dejisay dawladda oo madaxweynaha uu ka yahay annagu markaan waxaasoo dhan aan daraasaynay waxaan go'aansanay marka in siyaasad Soomaaliyeed oo shabaab lagu dirirayo la keeno mushkiladda ugu weyn oo na qabsatay intaan banaanka joognay intaan kaambeynka siyaasadda ku jirnay oo dhan waa fikireynay ilaan meeshii waa tagayaa
bas macno ma samaynaysa haddaadan muxuu ahay wax isbedel ah oo la taaban karo oo duruuftii dadka wax ka bedel aan la keenin daraasaad dheer iyo doodo dheer aada u dheer waqti dheer sanadana qaatay kadib waxaan go-aansanay siyaasad soomaaliyeed oo shabaab lagula diriro inaan la nimaado labadaas siyaasadoodan hore hal mid ka midaysnaayeen dhammaantood waxay ahayd military dagaal military ku wajahan ama cir ha laga duqeeyo ama dhul ha laga gaado ayay ahayd shabaab inaan military bas dagaalkiisa aanu ku filnaynaa noo soo baxnay oo loo baahan yahay farontiyo kale oon military ahayn in lagu furo sidaas daraaddeed siyaasad 3 tiir ku salaysan ayaan soo dejinay oo ah tii militariga ahayd in la sii wado lana sii xoojiyo in shabaab waa organization ama urur ku salaysan caqiido ay ku doodaan inay caqiidada saxdeeda islaamka iyagu ay yihiin dadkan muslimiinta soomaalida waa hal qowmiyad waa wada ogtiin waa Soomaali isku af isku diin isku dhaqan isku cid wax walba ka midaysan waxay yiraahdaan halka wax oo Soomaalida dhan ay ka siman tahay oo switchka laga daminayo lagana daaray noqon kara diinta islaamka waa diinteena soo gal macnaheedu marka taas maaha inay diin wadaan ma ah laakiin siyaasad ahaan ay arkeen dadkan meesha ay ka nugul yihiin oo laga kici karo oo laga dami karo meeshaas waa ka gala diinta sidaas ay ugu soo gabadeen niman diin wada ma ahayn sidaas daraaddeed diintana annaga iska leh oo ayaga ka badan oo ka asalsan oo muxuu ahay diintii sax ahayd iyo caqiidadii sax ahayd ku taagan marka xoogaa waxay nagu noqotay meeshaas meel oo cidla ah marka inaan kula dagaalano oo shacabka Soomaaliyeed si kasta oo lagu tusi karo lagu fahamsiin karo nimankan waxay wadaan inaanay diin ahayn in laga shaqeeyo oo dagaal fikri ah lala galo waxay ahayday tiirka labaad tiirka saddexaad waxay nimankan inta badan barigii hore hadday heli jiray waayaha dambe lacag ma helaan lean alqaacidadii bannaankaa la daciifiyey waa la adkeeyey wixii bannaanka lacaga badan uma iman karaan gudahay lacag ka qaataan dhaqaalaha gudaha ay ka qaadanayaan in lagula dagaalamo ayadana laga hor istaago sidaas daraaddeed saddexdaas tiir ku taagan ayaan la nimiday saddexdiibana waa wada qaadnay ha sii kala horeeyaano kala guulahooda ha kala weynaadaan laakiin saddexdaba waa noo shaqeeyaan sideedaba shacab ummad hadday go-aan gaarto wax kastay samayn kartaa oo ka maqan waa heli kartaa ugu dambayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbadiisa wuxuu ku soo gebagabeeyey isku duubni iyo niyad wanaag in lagu wajaho shabaab si guud ahaan koonfurta Soomaaliya shabaab looga xoreeyo annaga inaan go-aan gaarno cabsida kala aamin baxa isxagalgaadka maxaan ku leedahay hoos iska fiirinta ka gabashada ku dhicid la'aanta waxaanoo dhan waxyaabaha dabarka lagu aho lugaha naga haysta waa shabaab inaan iska xoreyno annaga nagu xiran tahay waa caddaynay haddana waa u taagannahay waana iska xoreynaynaa dalkeenna nama gabin allana nama gabin annagu yeenaan isgabin waa ku mahadsantiin daawashada warkayaga som TV Soomaaliya xafiiskiisa magaalada Muqdisho warkan lamid ah intaanu ku wada kulmayno nabadgelyo.